هيو ما آمن سني قبر حفلة أنت يقول شو يقول heestayda intay ila dhageysatay ila ciyaartay oo walaashay Soomaaliyeed heestaaba dambi ah inaad adiga laftaada u heystid oo munkarka soo shiritid munkar oo dhan aad isku keentid nijaaso oo dhan aad isku keentid oo habeenkii iswasaan kulligood adiga dambiga ay galaan 50% baad ku leedahay whether you like it or not waa kuu sheegayaan naagta habeenka meesha imaatay ee ku niikisay ee nin kale ku sii niikiyay dambiga ay la imaatay meeshaas 50% baad ku leedahay whether you like it or not you have to know that waa inaad ogaataa arrintaas إلهينا معناها 50% كله ها هذا اسكو كان هذيك هذا هو هيسلهين والموزيك وقراع لهين اسمعي ماذين واسكو كانيسا واظني كنيسا سوبر دنبا soo baxaysa meesha ka wada niikanaysa suubaygi kala imaanaya waa is arkayaan habeenkii israacayaan wax alaala wixii shoogaaga isku wasa 50% baa ku leedahay whether you like it or not waa reality jiraan ku sheegaya Omar waxaan show qabtay marka 50% وابوها اها waxa isaaqada ka xiray baa kuwa 50% hada waa soconaya adiga qof kasta waxa la yiri in shar iyo khayr wuxuu leeyahay waa u soconaya midqaala daratin khayran jara sarka ali ma wadaad laga ma dulmaayo buuga shubtiyay aniga iga dulqaad 50% digan waxa tacay aniga hada walaalo 50% ana ma hada Omar, and you have to accept the reality. wadaadka masaajidka jooga ee dadka u xaadreynaya hadda waxa aaminsantahay fanaaniinta xoolahooda iyo waxay cunaan iyo waxay cabaan waa xaraam baad aaminsantahay oo ilaahay baaba sheegay bay music waa xaraan horta hal mar 1 second see jihaya 1 second see waruntu sheegay ninkan and waxa jira waxyaalo badan dadka ogeyn soo baad samaysatay dad baa isugu ka yimid dad badan baa imaaday shoogii waa ku qarxay aniga markaan soo tago suubaan ka helay kuusanan nig leh suubadii baa habeenkii dabka saaray yaa isku kaaya keenay hada isku kaaya keenta my friend ani kaligay ma qaadanay dambiga oo maar 50 giisu la boodaya aniga 25 kagaan la boodaya gabadhana 25 keeday qaadanaysa dambigu waa saas waa 100% asaga 50% leh oo dadka isku keenay that's how it is my friend whether you like it or not and arintu waa aynkaas waa sida diintana farayso waa sida ay tahay way wax la qarinayo ma leh ilaahay shaqooyin badan buu keenay ma shaqaysat maad way house ka aadid ma truck driver noqotid ma xamaal noqotid inaad music iyo munkar ka sheekaysid oo dadka isku maana igu sii socotaa will never make you rich Omar wax xalaal raadi walaalo si nin aan jeclahay saaxiibkay tahay wax xalaal si xalaal wax u raadi naga daa waxaan aad shugooyinka shirinaysid ee durbaanka iyo tumaysid ee habeenkii is afuufayaan oo adigana aad ka sii qaadaysid ruuxaamo ma garad kuwa garad shugooyinka waxay ku soo akhriyeen aday godku galin rabaan moogtay ninkan naaguhu caaya ninkan saan u dhaha nimanka xun kama soo hadlo ninka xun hooyaa dhashay Omar yaan waxba lagu sheegin ninka xun hooyaa dhashay gabadha xun hooyaa dhashay hooyooyinka waa macalinka koowaad ee adduunka hooyadu waa in la hagaajiyo suuban noqonin hooyadu hadday suuban noqoto wax kasta halaabayo no production babant waagar ka nin waxa tahay aqli badan oo fanaanaha aan jeclahay aad iyo aad aniga maanta shuuba kalkaal bay dhis anigu ma bixinin dadkan wax alaana wixii suubu meeshan waxa ku jira 1 milyan oo qof ku jirta waa ku fiirsanayaan waxay kugu dhajireen hadaa marna u hiilisid suuba kalkaal ay kuleeyeen ma garatay iyaga magacaas la bixin tuur ay kuleeyeen war Omar ma tuuri karo waa nin aan isnaqaanay ilaa iyo intaas oo Afrika joognay before TikTok ba isnaqaanay isagoon fanaan ahayn ba isnaqaanay isagoon Omar ahayn baan isnaqaanay ima yaqaanay isaga hadda isoo xasuustay